goorsan daawadayaal waa mar kale iyo wararkii xul iyo xaqiiqo. barnaamijka maanta waa mid saadaal ah oo aynu daaha kaga qaadayno kagana jawaabayno su-aalaha ka soo burqanaya dagaalka ka qarxay Ukraine. waxaynu ka jawaabi doonaa haddii alla idmo maxaa ama goormahay colaadu soo afgo'aysaa yaa guulaysanaya, maxaa ku dhici doona madaxweyne Zelensky iyo muxuu yahay mustaqbalka Ukraine, ma mid reer galbeedka taabacsan mise mid Moscow xigsanaya. waxa kale oo aynu isdul taagi doonaa wadahadallada Ukraine iyo Ruushka uga bilaabmaday waddanka Belarus, maxay natiijadiisu noqon doontaa. taariikhdu waa 28 February 2022. duco qabayaal shaaha soo qaata oo soo dhowaada. colaada ka dilaacday Ukraine waxay keentay su'aalo aad u tiro badan. su'aalahaas waxaa kuwo ka mid ah nala soo wadaagay dadka sida wanaagsan noogu xidhan, iyagoo naga codsaday bal in aanu tooshka saadaasha xanjar u gashanno sidii aanu u iftiimin lahayn, xogtana aanu idinla wadaagi lahayn. barnaamijku waa saadaal dhanka falcelinta, adiguna noogu dhaaf aragtidaada ku aadan colaadan iyo barnaamijkaba. su-aasha ugu horreysa ayaa ah, colaadda Ukraine goormay dhammaanaysaa? aragtidan ayaa laba u kala jabsan. dad odhanaya si dhaqso ah bay ku dhammaanaysaa, iyo feker ah in dowlado kale soo geli doonaan, markaasna colaaddu daba dheeraan doonto. inkastoo hadda ciidamada Ukraine ay xiniyo dugsanayaan, haddana saadaashu waxay tahay ma sii hor joogi karaan ciidamada Moscow. waxaynu saadaalinaynaa in dhowaan 48 saacadood ee soo socda ay gebi ahaanba Ukraine gacanta ku dhigi doonaan ciidamada Ruushku. su-aasha ku saabsan hoggaanka Ukraine maxaa u dambeeya? warbaahinta caalamka ayaa maalmahan dambe si heer sare ah u qaadadhigaysay geesinimada madaxweyne oo sheegay in aanu ka bixi doonin Kiev, balse saadaashu waxay sheegaysaa in loo samati bixin doono dalka dibaddiisa, kadibna uu noqon doono dadka warbaahinta casriga ah ka hadla. waxaana dhici karta in reer galbeedku dusha kaga tuuraan cumaamado bilado abaalmarin ah. su-aasha ugu culus waxay tahay maxaa Ukraine ay noqon doontaa? si aynu uga jawaabno waxaynu eegaynaa ujeeddada madaxweyne Putin oo keliya ah in uu helo Ukraine aan ururka ciidamada Maraykanka iyo Yurub ee NATO ka qayb noqon. arrintaas dhowr siyaabood baa uu ku heli karaa, balse ta ugu fudud Moscow waxay tahay in uu Ukraine laba u kala jabiyo, oo uu bariga Ukraine oo uu muddo dheer gacanta ku hayay dad ahaana Ruushka ah in uu qaato, laakiin dhul ahaan Ruushku wuu gaadhay hadafkiisii ahaa in uu bariga Ukraine si rasmiya gacanta ugu soo dhigo. hadda waxaa keliya ee uu sugayaa intii uu kaga takhallusi lahaa dowladda Kiev. markaas iyana waxaa suurtagal ah in uu helo dowlad Kiev ka jaraysa oo sida Belarus uu gacanta ku hayo, balse iyadu ismaamusha. dowladda Zelensky oo reer galbeedka la saaxiiba ayaa saadaashu sheegaysa in dhowaan daaha loo laabi doono. wadahadallada ka bilaabmay waddanka Belarus ayaan marka hore wax natiijo ah keeni doonin, balse gebi ahaanba waxaa warmurtiyeedka soo qori doona Ruushka marka dambe, markaasna Ukraine way ku dhawaaqi doontaa. NATO ayaa arrintan cambaarayn doona, laakiin marnaba ma dhici doonto in ay awood u yeeshaan inay wax ka beddelaan guusha Moscow. intaas kadib waxaa leena tusi doonaa waa saadaasha sawirro ciidamada Ruushka oo Kiev dhex tamashlaynaya, iyagoo carruur la ciyaaraya, iyo iyagoo ciidamada lagu soo dhoweynayo mushxarad. madaxweyne Putin marka uu intaas helo wuxuu Ukraine dib ugu soo dhoweyn doonaa walaalnimada Ruushka ay isku yihiin ee qabiilka Slavs. markaas ayaa ciidamada Ruushku ay dib uga bixi doonaan dalka Ukraine, balse si rasmi ah Moscow waxay ula wareegi doontaa gobollada bariga. saadaashu waa naga intaas daawadayaal, bal adiguna isku day dhanka falcelinta aragtidaada noogu reeb. inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono, gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa ammaana alla.